بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي سود وهذا وحين ما أنتنا بلابينا جبتر عصب هذا ما ينصاد لينا أما إنصاد لميني جبتر كأنه هراء كوساب سنة تاريخ الدنيا ما أنت وحين نيجي الأمر قيادة وعربي الوير هذا أو سومالي الوير هذا هو جامنته إنجليز كان يقوله leadership waxaynu ka hadlaynaa hogaaminta nagoo soo qaadanayna tusaale ahaan u soo qaadanayna guulihii iyo waxyaalihii ay soo hogaamiyeen ama soo qabteen qaar kamid ah hogaamiyaashii muslimiinta waxaynu ku horeysiin doonaa asxaabiga weynaa ee jaliilka ahaa Uthman bin Affan oo ahaa khaliifkii saddexaad ee muslimiinta marka waxa adduunka definition-ka la isku haystaa ama qeexitaanka kelmadda hogaamin muran badan baa ka taagan hogaamin maxay tahay la isku haystaa inagu marka in jaacilu fil ardi khalifa soo quraanka ilaahay kuma oran waxa loola jeedaa hogaamin soo maaragtid inagu marka waxaan ku salayn doonaa 10keena gabi ahaanba Islamic rulers soo maray ama hogaamiyaasha islaamka ee soo maray casharkan kooda ku saabsan yahay taariikh yar oo brief ah oo aynu ka soo qaadan doono taariikhdii dahabiga ahayd ee asxaabigii weynaa ee jaliilka ah khaliifada islaamka soo qabtay Uthman bin Affan ee qaniga ahaa Uthman wuxuu ka mid ahaa asxaabta dadka ugu qanisan haduusan bal number 1 hayn isagu okay casharkan ujeedooyinkiisu arday ayaan halkaan ku soo bandhigi doonaa koow ardaygu waa inuu awood u yeeshaa muxuu awood u yeelanayaa inuu qeexo kelmadda khalifa waa leadership culimadu waxay ku tilmaameen waa leadership macnaheedu kelmadda khalifa marka waxaan ula jeedaa kelmadda khalifa waxa weeye dawlad islaama oo lagu xukumayo sharciga ilaahay adduunkan u soo dejistay in lagu maamulo baa khalifa la yiraahdaa khaliifna waxa weeye hogaamiyaha ama cidda marka hogaaminaysa dawladdaas islaamka marka inuu ardaygu kala saaro wala rabaa khaliif iyo khalifa inuu xasu taariikhda kooban ee hogaamiye Uthman bin Affan iyo Ali bin Abu Talib radiyallahu anha okay inuu ardaygu sheegi karo guulihii ay gaareen labada hogaamiye ee kala ah Ali iyo Uthman maxay ku soo korriyeen diinta islaamka xageey bay gaarsiiyeen iyadoo kooban bay dhigan doonaa kelmadda khalifa waa wadan islaam ah isla markaana lagu maamulo oo lagu xukumo dadkiisa shariicada islaamka waxaana xukuma qof la yiraahdo khaliif oo macnaheedu yahay hogaamiye وهذا ماشى مدحوينياش إنه كلنا وكله مدحوينا سيد عبد الله الدنيا وكله ماشى إنه جوجو مدحوينا محمد عبد الله فرماجو أوكي تاريخكم أنا عاصم العرفان وحكسوا بلعبتي لح بقول أفرتني يا أفرتي إلى لح بقول كنتن يلحدي وتاريخ ده وهجري قوي ميلادي جماعة Uthman wuxuu kamid ahaa asxaabtii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam marka koowaad asxaabi jaliila qani ah aad looga yaqaanay ama aad loo yaqaan ayuu ahaa wuxuu ka qayb qaatay horumarintii taariikhda islaamka ayuu ka qayb qaatay waliba taariikhdii hore islaamka isaga wixii ka horeeyay inuu qoro oo hagaajiyo oo ugu horeeyo kitaabka quraanka ah wuxuu ka dhashay reer kale yiraahdo reer bin Umayya oo ka tirsanaa qabiilka Quraysheed ee magaalada Makka degi jiray wuxuu ahaa hogaamiyihii saddexaad ee islaamka yaa isaga ka horeeyay waxa ka horeeyay Abu Bakr as-Siddiq iyo Umar bin Khattab isagu marka wuxuu ahaa hogaankii saddexaad ee islaamka wuxuu hogaaminayay islaamka islaaminta hogaankeeda wuxuu hayay ama islaamka hogaaminayay muddo 12 sano hadaa kala jirto 644 laga jaray 656 waxa ku soo baxaysa
12 soo ma aragtid waka 12 sano buu maamulayay ama hogaaminayay islaamka muxuu ku soo kordhiyay marka muxuu ku soo waxa jira adduunka qof kasta oo meel qabtaa ee waxbuu steep wax ka bilaabay meel wax ka bilaabaa marka wuxuu isagu soo kordhiyay waxa ugu horeeyay wuxuu qoray kitaabka quraanka ah hal kitaab buu ka dhigay kitaabka quraanka ah wixii Usmaan bin Affan ka horeeyay ma uusan urursanayn marka waa soo ururiyay completion kii ku sameeyay ama uu complete gareeyay oo wuxuu ka dhigay hal kitaab oo quraan soo ma aragtid waa qodobkeena koowaad qodobkeena labaad wuxuu balaariyay dhulkii ay maamuleysay khaliifadii islaamka xilligiisii soo ma aragtid wuu balaariyay wuxuu horumariyay ciidanka badda islaamka dad baan ogeyn taariikhdaas in islaamku lahaayeen ciidanka badda navy army ama ciidanka badda inuu isagu horumariyay oo ka qayb qaatay oo dunida islaamka iyo maamulka islaamka ee jiray uu ku soo kordhiyay qodobka ah horumarinta ciidanka badda ee muslimiinta wuxuu gaaray Faris waa meesha maanta loo yaqaano halkaas waa Iran weeye sidaas waa adka wajido Iran weeye adalkaas waa Iran Iraq ma okay wuxuu kaloo islaamka gaarsiiyay Kristaan meesha la yiraahdo maanta loo yaqaano Afghanistan ayuu gaarsiiyay iyadana okay waxaynu gaarnay guntiga gabagabadiina 10keeni koobnaa ee ku saabsanaa taariikhdii Usmaan bin Affan radiyallahu anha radiyallahu anhu okay gormu hogaaminayay ama kumu ahaa hogaamiyihii saddexaad ee islaamka su'aashaada laga rabaa imisa sano ayuu xukunka hayay Usmaan bin Affan tax laba kamid ah guulihii uu gaaray hogaamiye Usmaan bin Affan ama khaliifkii islaamka Usmaan bin Affan arday waxa la idin rabaa oo kale oo idigu dhiirigelinayaa inaad kanaalka saartaan subscribe buttonkaas si aad ula socoto casharada dhamaantood maadooyinka oo dhan ha hilmaamin subscribe farta ku dhufo